بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaa halkan ku soo gabagabooday inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu saxeexay miisaaniyaddii 2023 maanta ay bishu tahay 31 bishii December waxaan runtii halkan aad ugu bogaadinayaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqal oo si qurux badan u ansixiyay una soo gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si uu u saxeexo si loo dhaqan geliyo oo muxuu ahaayay loogu hawlgalo marka runtii waxay noo tahay wasaarad ahaan iyo qaran ahaan iyo muxuu ummadda Soomaaliyeedba maalin weyn oo runtii aan muxuu ahaayay ka gudubnay sanadkan iyo muxuu ahaayay runtii una diyaar garownay sanadka cusub iyo miisaaniyadiisa iyo insha Allah inaan rajaynayno sanad horumar leh oo runtii muxuu ahaayay dhaqaalaha Soomaaliyana uu sameyn doono laba kacleyn cusub uu sameyn doono taasaan muxuu ahaa runtii aad u rajaynayna halkan aan joognaa waa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hadda aan ku soo gabagaboobay saxeexii muxuu ahaayay miisaaniyadda xeerka miisaaniyadda 2023 ummadda Soomaaliyeed waan bogaadinayaa ummadda Soomaaliyeed waxa weeye runtii dalka iyo dadka Soomaaliyeedba waxa ka go'an dawladnimo waarta iyo horumar runtii muxuu ahaa taabagala taasaan muxuu ahaa u rajaynayaa sanadka cusubna inuu muxuu ahaa nabad qab iyo wanaag iyo rayn iyo horumar inuu muxuu ahaa inoo horseedo aad baad u mahadsantiin ummadda Soomaaliyeed ee wada maqlaysa guul iyo gobonimo. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.